Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan rabaa inaan halkan ka sii anbanqaadno xubinteennii ganacsiga. Waxaan rabaa inaan maanta kula wadaago 3 fikradood oo haddii aad taabagelisid ama aad hirgelisid aad ka helayso manfac fiican. 3 fikradood oo kale ah ice cream shop, dukaangada ice creamka. Ice creamka waxaan ogsoonahay in dhalinyarada waliba da'yarta hadday noqon lahayd haweenka iyo wiilashu inay aad u isticmaalaan ama aad u jecel yihiin. Dukaankaas haddii aad u hesho position ku habboon ama meel dad badan population badan kulmisa, hadday noqon lahayd suuqa, hadday noqon lahayd meelaha dadku mujtamaca inta badan ay ku kulmaan waliba da'yarta khaasatan gabdhaha. Waxaan filayaa in mashruucaas inuu noqon karo mashruuc guuleystay, mirihiisana aad guranayso. Mashruuca labaad aan kula wadaagayo waa shop, waa dukaan xaafadeed. Dukaan xaafadeedku waxyaalaha mashaariicda inta badan guuleysta 2 sababood baa loo sameeyaa. Wuxuu sahlaa in dadkii inay suuqa iska daayaan oo ay suuqi aadidii ay dadku ka yaraato. Qodobka labaad waa qofku wuxuu u baahnaa magaalada weyn uga baahnaa oo u soo dhawaaday. Marka isaguna waa waxyaalaha waqtiga maanta la joogo qofkii hirgeliya wax badan ka mira dhalin karo, guul badan ka gaari karo. Marka qaabkee qof u asaasi karaa ama opportunity intee la eg baa ka bannaan. Opportunity waxa ku heli kara xaafadaada oo kaleeto. Waxaad indhaynaysaa bal dukaamada ku yaala waxa ay hayaan iyo waxa ii sheeg dadku inta badan ka doonanayaan. Marka isaguna waa ganacsi in badan guuleysan kara. Ganacsiga saddexaad waa mini supermarket. Mini supermarketka yar. Dadku waxaa moodaa waqtiga maanta la joogo inta badan dadku in supermarketka aad Soomaalidu waqtiga maanta la joogo aad u xiiseynayso. 2 sababood baana keenaya. Marka koowaad, supermarketada waxay kulmiyeen alaabta oo dhammaystiran baad ka helaysaa. Marka saddexaadna waa wixii aad meelo kale ka raadin lahayd waa meel aad wada kulmisay. Marka isaguna waa wax waqtiga maanta la joogo inta badan guul laga gaaray dadkii asaasay ama fikradahaas soo kordhiyay. Markana waa ganacsi saddexaad oo shaqeyn kara. Aad baan u mahadsantihiin intii group nagu soo biirtay bahda YouTube. Aad baan u mahadsantihiin walaalayaal.